barnaamijkeena waxaa ka warramna taariikhdii Nelson Mandela. Bilowgii noloshiisaba macalinkiisii ayaa u bixiyeen magaca Nelson Mandela, isagoo magaciisii hore uu ahaa inankii bedeli lahaa South Africa. Waxa uu ka dhashay qabiilka Mandela oo ah beel ku dhisan nidaam boqortooyo. Markii uu aabihii dhintay, waxaa loo soo wareejiyay dhisme ka tirsan boqortooyada, isagoo halkaasi kala kacay fikrado ay ku dheehan tahay hami sare iyo isku kalsoonaan. Da'diisii 25 jirka ayuu waxa uu soo wareegay magaalada Johannesburg, xilligaasi oo ahayd markii uu ku biiray xisbiga ANC-da, isagoo xilligaasi qabta shaqada qareennimada. Mandela waxa uu xilligaasi ka furay magaalada Johannesburg xafiis u gaar ah qareennimada midowga, taasi oo aan ahayn mid ka suurtagelisay xilligaasi South Africa. 1958 ayaa waxa uu guursaday gabadhii markii dambe noqotay xaaskiisa ee Winnie Mandela. Nelson Mandela waxa uu aaminsanaa in xukuumaddii caddaanka ee tirayareed ee xilligaasi maamuleysay South Africa in lagu beddelo qaab nabada. Markii warbaahinta ayaa xilligaasi soo bandhigtay sawirro uu ka mid yahay Nelson Mandela, iyadoo xilligaasi lagu xukumay xabsi daa'im. Markuu ka soo baxay xabsiga, Nelson Mandela waxaa la guddoonsiiyay shahaadada Nobel Prize-ka isaga oo hamigiisii ku qaatay muddo 75 sano ah. Nelson Mandela waxa uu 1994 ku guuleystay doorasho ka dhacday dalkaasi. 2013 madaxweynihii hore Jacob Zuma ayaa ku dhawaaqay dhimashada Nelson Mandela, iyadoo xaflad aad u weyn oo lagu baroordiiqayay Nelson Mandela lagu qabtay South Africa. waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyogan. Hana ilaawin subscribe, like hadduu ka caawiyo fiidiyogan.